بشان نجحنا براغني نسيبكو بشو وعنادي بشي نبداي أغسطو بشان نسناي أغسطو بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو نفقة بدني أغسطو وياد نوتو أغسطو أسكاغي شغلي أغسطو قلبيغا كنغو أغسطو بشان نجحنا براغني نسيبكو بشو وعنادي بشي نبداي أغسطو بشان نسناي أغسطو بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو نفقة بدني أغسطو وياد نوتو أغسطو أسكاغي شغلي أغسطو قلبيغا كنغو أغسطو بشان نجحنا براغني نسيبكو بشو وعنادي بشي نبداي أغسطو بشان نسناي أغسطو بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو نفقة بدني أغسطو وياد نوتو أغسطو أسكاغي شغلي أغسطو قلبيغا كنغو أغسطو بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني هوري بنتلان دكتور عبد الولي مدحويني كحوغينكي هوري دكتور محمد علي قاقاب وزيرada iyo xildhibaanada galmudug iyo wafdiga la socda wasiirada iyo xildhibaanada puntland maamulka gobolka iyo degmada gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ee dhinaca puntland iyo dhinaca galmudug marti sharafta kale ee kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan dhalinyarada haweenka saxaafadda fanaaniinta baambeyda ubaxa puntland iyo cid walba oo maanta joogo isimadu ugu mudan yihiin intaa caawa nagala joogta dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad gaara ayay ii tahay in maanta lagu qabto xafladdan magaalada gaalkacyo oo taariikh weyn ku leh aasaasidii puntland waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba iyo soomaalida inteeda kaleba aan u diro hambalyo maalinta 1 Agoosto oo ah maalin Soomaaliyeed maalin horseed u ahayd dowladnimadii dhaawucu gaaray 90kii soo kabashadeedii dowladdaas oo runtii aasaaskeedii ay noqotay fure u noqotay hiigsiga maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo leeyahay waxaan rabaa inta aanan hadalkayga sii gelin maadaama dadkii soo joogay mucaasho geelle iyo gaagaab wax badan oo taariikhda ka sheegeen khaasatan uu gaagaab xusay xaaladii lagu jiray xilligaas anuu nin dhalinyaro ah baan ergada ka mid ahaa marka waxaan rabaa 3 qof inaan xuso aan aad u xasuusnahay waxaan aad u xasuusanahay noloshii adkayd ninkii qaybta weyn ka soo qaatay oo muuse diilay la oran jiray oo maqaayad ku lahaa waxaan rabaa abwaanad la yidhaahdo xalima puntland oo door weyn ku lahayd inay qabsoonto puntland iyo waxaan rabaa jaamac geliyey oo isla door ku lahaa 3daas qof marka laga tago istimadii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kale 3daas runtii baraarujinta iyo noloshii dadka qayb weyn bay ku lahaayeen marka intaas inaan anna xasuusteeda ku daraan rabay marka intaa ka tago dabcan maanta 22 sano ka soo wareegtay inay puntland ay aasaasaan dadkii hormuudka u ahaa dadka reer puntland ee gartay inay samaystaan nidaam maamul
oo dadkooda ay ku kala hagaan oo danahooda ay uga shaqeeyaan oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay ku taabageliyaan sidoo kale ay ku baadigoobaan soomaalida inteedii kale oo ay gacan ka geystaan sidii soomaali ay usoo kaban lahayd runtii waa taariikh in lagu celceliyo u baahan waa taariikh laga dheehanayo hoggaanka iyo shacabka reer puntland waxa ay doonayaan oo ah soomaali isku duuban soomaali xasiloon soomaali horumarsan soomaali dimuqraadiya iyo soomaali federaal ah doonistooda ayay mar walba ku celcelinayaan waana mid ay u arkaan inay ummaddan daawad u tahay ciddii markaas dood ka qabto intaas inay fiicnaynna waxay jecel yihiin inay dood furan la yeeshaan waxaan uga mahad celinayaa kelmadihii fiqi oo galmudug oo iyadu marmar dood ka qabi jirta federaalka inay maanta nala difaacayso puntland waxaad ogtihiin galmudug markay qaybta mudug keliya ahayd puntland way garab istaagtay waxbay ka dhistay dhaqaalay ku bixisay mar walbana way garab taagnaan jirtay haddoo ay galmudug dhammaystiran tahayna sidii bay u garab taagan tahay waxayna jeceshahay inay horumarto oo meel gaarto galmudug puntland marka la yidhaahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhexaysa magaalay wada degan yihiin waxaan rabnaa inaan nabad iyo degenaansho iyo wax wada qabsi aan ku wada noolaano iyadoo cid walba degaankeeda maamulkeeda mas-uulka ah laakiin waxaan rabnaa qolo walbana inay degaankeeda mas-uul ka noqoto iyagu iskaalmaystaan danaha soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasilla intii aan annagoo keligeen ayn soo marnay waa huba annagoo wada jirna haddaan soomaali u istaagno inay wax badan qabsoomi doonaan annagoo kaashanayna dowladaha kaleeto ee xubnaha ku ah dowladda federaalka maanta waa maalin farxadeed waa maalin runtii loo dabaaldegayo oo loo damaashaadayay khaasatan da-yarta soo koraysa inay mar walba dareemaan in ay dowladdoodu iyo waxay soo martay ay la socdaan si ay ugu barbaaraan inay iyaguna noqdaan kuwii birri kasii shaqayn lahaa siday dowladdaas u horumari lahayd dabcan muddadaa 22 sano ee lasoo maray caqabado badan oo kala duwan baa lasoo maray oo noocyo kala duwan leh madaxweyne walba oo soo maray duruuftiisa gaarka haysatay laakiin waxaa ilaahay mahadiisa doonidda shacabka puntland oo ah mar walba inay hore u socdaan oo dib u socon ayaa waxaa saacidaysay caqabadahaas madaxdiis kala duwaneed ee soo martay inay mar walba ka gudbaan runtii caqabadihii ugu darnaa waxay soo qabsadeen allaha u naxariistay madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo ahaa madaxweynihii u horreeyey oo dhidibada u aasay oo caqabadihii badnaa ee hadda laga sheekeeyey wajahay waxaan ilaahay mahadiisa inuu caqabadahaas intuu dhaafiyey weliba aragtidii puntland xaqiijiyey oo soomaali doonay oo villa soomaaliya mar labaad in madaxweyne soomaaliyeed uu ku fariisto dhaliyey muddo dheer kadib hoggaankii puntland oo ismo iyo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro lahaa wixii ay soo qabteen dadka maanta jooga hiil waxay ugu tari karaan inay waddadii ay jeexeen ay sii hayaan oo ay sii hirgeliyaan intii hadba karaankooda ah dowladda puntland ee maanta jirta runtii caqabadaha haysta waa ay ka duwanaayeen caqabadihii kuwii hore haystay waxay isugu jireen caqabado gudaha ah iyo caqabado maamulka puntland ka baxsan caqabadaha gudaha oo haystay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo marxalado badan dadka puntland wixii ay doonayeen ay ugu horeyso inay dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan helaan in ay dowladdan laga sugaayo caqabadaas inay ka gudubto tallaabada ugu horeysa oo gundhiga u ahaa dowladdan hadda aan madaxda ka ahay oo ka go-an waxa weeye inay la helo nidaam dimuqraadiya oo axsaab badan oo la doorto oo madaxda soo socota ay sidaa ku soo baxdo
si taa loo helo oo doorasho loo dareerayo waxay u baahan tahay amniga sidaan uga shaqayn jirno hore in wax lan ka bedelno amnigeenni marka hore wuxuu ku wajahnaa cadow meelo mucayana jooga laakiin dadka intiisa kale nabad bay ku wada noolaayeen laakiin hadda cadowgaas waa ka duwanaan doonaa markii tartan iyo asxaab furan iyo degaano kasta laga codaynayo wuxuu u baahan yahay nidaam iyo xasilooni ka duwan tii hore iyo ciidan ka tayo fiican oo ka tababar fiican kii hore oo inta badan bulsho meel badan isugu timid la macaamili doona taas ayadana waxay saldhig u tahay inaan diiradda saarno dib u habaynta ciidamada ee aan wakhtiga badan gelinayno oo aan rajaynayno meelaha ugu dambeeya oo hadda loo joogo ay ka mid tahay gobolka mudug oo duruuftiisa gaarka lahaa oo muddo dheer saldhig u ahaa ilaalinta nidaamka puntland nabadeeda iyo xasiloonideeda waxaan rajaynaynaa ciidamada kala duwan ee puntland inay maantan u diyaar garoobaan weji cusub inay galaan isbeddelka ciidan ee la wado ee tayeynta iyo tababarka iyo nidaamka la wado waa mid xirfadooda kor loogu qaadayo si ay marxaladda cusub ugu diyaar garoobaan waxaan ka rajaynayaa sida madaxweynihii hore uu sheegay in gacan weyn laga geysto qodobkaas oo runtii qodob muhiima waxaa puntland ka socda horumarro kala duwan oo dhinaca jidadka ah muddadii u dambeeyey waxaa socda horumarka ku saabsan dhinaca garacad iyo tuurdibi waxaa socda horumar ku saabsan xagga waxbarashada waxaa socda horumar ku saabsan dhinaca caafimaadka waxaa socda horumaro dowladda iyo shacabka iyo dadka deeqbixiyaashaaba iska kaashanayaan oo la dhihi karo waa nidaam runtii haddii ay wax kaga dagan karaan deegaanada kale iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka waa nidaamka puntland maanta ay marayso oo 22 sano ay meel maanta la tiigsan kara ay soo gaartay waxaan rabaa halku-dhigga puntland ee ah horumar dhaqaale iyo horumar dimuqraadiyeed oo saldhigiisu amni iyo xasilooni yahay inay bulshada puntland meel kasta ay joogtaba ay ka shaqayso oo gacanta isu qabsato oo horumarkaa laga shaqeeyo waxaa kaloo puntland iyadana qorshaheeda koowaad ah in ay taabogeliso nidaamka iyo wada noolaanshaha galmudug ee bilowga ah oo muddada soo socday safarkaygii dhuusamareeb ilaa gaalkacay wuxuu astaan u ahaa inaan nabaddaas dhidbada u aasno oo ay dib dambe u noqonin waxaan rajaynayaa annaga iyo galmudug oo isku duuban hal cadow oo keliya noo soo harayo waa cadowga shabaabka marka mudug la joogo cadowga shabaabka sida uu fiqi sheegay ayaan ku raacsanahay waxaa la rabaa maraaxishii lasoo dhaafay ee gobolka mudug ay ku sugnayd inay ka gudubto oo marxalad sax ah oo ay sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii lagu yaqaanay la soo noqonayaan oo magaaladooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda iyo dadkooda ayan cabsi dambe ku noolaan oo sidaan oo kale saacadahay rabaan halka uga caweeyaan dhinaca galmudug uga caweeyaan dadku isku socdo dad walaala ah oo gacmaha haysaystay noqdaan cid ku dhex jirtaana aysan jirin oo maaragtay nabadooda ay hor istaagto intaa markaan uga baxo arrimaha puntland iyo galmudug dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo adduunka wax la qaybsata oo sumcad leh oo degaanka soomaaliyeed oo dhan system isku mida ku maamusha runtii dowladda federaalka wakti badan baa la geliyey meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxayaan sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku baraarugto ay tahay waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso waxa ugu horeeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan puntland 22 sano waxay ku jirtay dastuurkeeday ixtiraamtay muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa dadkiisana waa yaqaanaa bannaankaasu iska dhiga doorashaa la galaa ciddii ku guulaysataa si sharafa loogu wareejiyaa wax dib u dhaca ma leh meeshii baa laga ambaqaada subaxdii anigu aan maalintan tartanka ku guulaystay anoonu hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay wax iska dhimay ma leh degaan walba dadkii joogay waa shaqaynayay
kii cabdiwelina sidaasoo kale ahayd faroole sidaasoo kale u ahaa cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd waxaan u baahannahay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah kuwo horaan u sheegay ma rabo inaan ku noqdo kuwa hadda cusub waxaa ka mid a xukuumaddii dhacday ee sida sharci darrada ah lagu riday ee sida sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka ku sii hayay oo dadku ay indhaha ka fiirinayeen waxay ku darsadeen waxaa la ohan jiray islaantii maxaad ku ogeed indhala-aan dad cunno bay ku darsatay hadda waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aada muhiim ugu ah dowlad dhiska soomaaliya oo hay-adda saddexaad ee aasaaska waa weliba sharciga oo weliba uu ka dhalan doono hay-ad maxkamaddii dastuuriga ahaa sida sharci darrada ah ee loo maray iyo iyagoon awood u lahayn inay saxiixaan oo garyaqaanadii ay ka qayliyeen oo bulshadii rayidkaa ka qaylisay oo cid walba ay sheegtay waxaan leeyahay dowladda soomaaliya anima dhahaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arrintaa ha ka digtoonaada dalkan hadduu soo kabanayaa dib dambe yaan loogu celin kala irdhow qodobkaas waa qodob muhiim ah arrinta ku saabsan khayraadka oo ku saabsan batroolka iyadana yaan lagu kadsoomin caalamkana waxaan u sheegayaa hantida dadka soomaaliya oona heshiis ku ahayd ciddii gadatay iyadaa mas-uulka ah puntland horey u sheegtay xeerkaas kama tirsana guddiga la sheegaya cid kuma darsan dowladda hadda 3 bilood 4 bilood u hardana shuruucdaas xataa dowlad rasmi oo ra-iisul wasaare sax hadday soo magacaabaan xataa howlahaas inay isku mashquuliyaan maaha ra-iisul wasaare hadduu soo magacaabayo xukuumaddiisu muddaxileedka iyadoo dhiman waxaa laga rabaa dalka inay doorasho geliyaan wax kaleeto inay wakti ku dhumiyaan lagama rabo arrintaasna waa fariin cad oo aan rabo inaan dowladda federaalka u diro intaas waxaan rajaynayaa iyadana in shirkii dhuusamareeb loo ballansanaa iyadana inuu sidooda u qabsoomo oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah ay isu yimaadaan oo niyad saxa lala yimaado ayaantii horeeto waxaan nidhi niyad wanaag baan ku tagnay laakiin markaan dowladda federaalka xisaabtan baa uga tegi doonaa niyad wanaaggii iyagaa ku cayaaray tii horeeto siday ula dhaqmeen waa la xisaabtamayaa dalkana si saxa ayaa la rabaa in danihiisa looga wada shaqeeyo cid marti ugu aama leh dowlad walba waxaa la rabaa bareeraheeda inay dhiibato waxa dadka danta ugu jirta inay ka hadasho waan rajaynayaa soomaali isku duuban oo marxaladdan ka gudubtay in la hadlo waxaan kusoo gebagabaynayaa baaq aan u diraayo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan rajaynayo in ay dalkooda u naxaan danihiisa ay ka shaqeeyaan duruufaha adag ee soo wajahana ay mid ka noqdaan puntland haddaan nahay dardaarankii isimada oo maxamed shirwac islaam garaadka maxamed cilmi shirwac oo halka iga soo jeediyey dardaarankiisii baan ku shaqaynaya inaan bulshada soomaaliyeed mar walba dalahooda ka shaqayno inaan u dhibrino oo annagu mar walba dulqaad muujino waxaan rajaynaynaa laakiin wixii khalad ku ah soomaalida iyo puntlandba inaan ka hadalnaan rabnaa haddana annagu intaa ixtiraamayna waan rajaynaynaa intaana lala garto hadalkeennu wuxuu ku aadayaa waa wax dhis waa soomaali midaysan waa soomaali dimuqraadiya waa soomaali federaala waa soomaali danaheeda ka tashata waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa mar labaad iyo saddexaad wafdiga galmudug ka yimid oo wasiirku hogaaminayo wasiirada kaleeto oo runtii wada shaqayn aada u ballaaran iyo kalsooni dhis muuqanaysa runtii inay taabo gashay aan ka wada shaqaynay waxaan ku faraxsanahay magaalada gaalkacyo mararka dambe oo la imaanayo iyadoo sidaan ka horumarsan ka qurux badan fariintayda u dambaysa waxaan u dirayaa
deegaanka gaalkacyo meelaha ay iska galaan galmudug iyo puntland guryaha durduursan dadkii lahaa ha dhistaan colaadami ma jirto xaafadda garsoor iyo xaafadda ka soo horjeeda dadkii lahaa hadday dibadda joogaan hadday dhulka joogaan waa inay dhistaan waa inaysan noqon meel tuugada ku dhuumato balaayada laga soo abaabulo shabaabka guri u noqoto galmudug waxaan rajaynayaa nimankii reer gaalkacyood oo xamar aaday war soo noqdo dalkiina dhista idinkana axmed fiqi waa sheegay wuxuu yidhi waa soo noqonaynaa waxaa la rabaa guryihii la dhiso magaaladii in la qurxiyo nabadgelyadii laga wada shaqeeyo waxaa inoo ballana dalkan oo qurux badan inaan isku soo noqono kulamada dambe aad baan u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aada uga soo qayb gasheen waan iniga mahad celinayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu